war degdeg ah ciidamadii ka tirsanaa kuwa maamulka Jubbaland ee dhowaan looga adkaaday gacan ku haynta degmada Beled Xaawo una baxsaday dhinaca Mandheera waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa si rasmi ah ugu soo biiray garabka dhinaca dowladda federaalka ee uu hogaamiyo Cabdirashiid Janan. Xer UK ayaa lagu soo bandhigay maxaa soo dedejiyay arrintan iyaysa tahay cidda fududeysay xogo iyo macluumaad dheeraad ah oo arrintan ku saabsan ayaan doonayaa inaan muuqaalkan idinkula wadaago. Soo dhawaada saaxiibayaal, haddii aad nagu cusubtiina nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada inagu xiran aragtidaadana qaybta faallada ama commentiga kaga soo dhiibo. Hagaagtaan ku bilaabo. Wararka ka imaanaya degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland ee taabacsan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee dhowaan looga adkaaday gacan ku haynta degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo isla markaana u baxsaday dhinaca waqooyi bari ee dalka Kenya ee Mandheera. Ayaa wararku waxay sheegayaan in ciidankii ugu tirada badnaa ee halkaa ku sugnaa iyo gaadiidkooda dagaal iyo hubkii ay wateenba gabi ahaanba ay si toos ah ugu soo biireen garabka ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo Cabdirashiid Janan. Xer UK oo ah xerada ciidan ee dowladdu ay ku leedahay duleedka degmada Beled Xaawo ayaana ciidankan si rasmi ah loogu soo bandhigay, waxaana tani fududeeyay sida xoguhu ay tilmaamayaan odayaal dhaqan oo wada hadallo iyo waan ka furay arrintan, iyadoo uu Cabdirashiid Janan iyo saraakiisha hogaaminaysa ciidankii ku sugnaa Mandheera ay wada hadalsiiyeen, waxaana guuleystay wada hadallo muddo soo socday, waxayna keentay in ciidankan gebi ahaanba gacanta dowladda federaalka Soomaaliya ay soo galaan. Waa dhabarjab iyo quus kale oo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu wajahayo, waase waa cusub oo Axmed Madoobe u beriyay oo xaaladda gobolka Gedo marka laga soo waramayo. dhowaan degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xooggan una muuqday mid Jubbaland ay doonayso in dib ay u ambaqaado awoodeeda ciidan ee gobolkaasi. Tanise waxay soo afjari kartaa rajadii Axmed Madoobe ee ahayd degmooyin hor leh oo gobolka ka tirsan oo kol hore looga adkaaday inuu dib u soo ceshto. Cabdirashiid Janan, taliyaha nabad sugidda ee dowladda federaalka Soomaaliya ugu magacaaban gobolka Gedo sidoo kalena ah madaxa xasilinta amniga gobolkaasi, waxa uu ciidamadan u ballan qaaday in xuquuq joogto ay heli doonaan iyo dallaacaad, isaga oo sheegay in ay ka soo weecdeen dhaba aan wanaagsaneyn, isla markaana wuxuu caddeeyay inaan loo ciqaabi doonin dhibtii ay kol hore geysteen oo uu sheegay inay ahaayeen keliya fuliyaal amar uu ku tilmaamay inuu ka yimid Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo weedaysan ugu yeeray. Janan tani markii uu tagay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo waxa uu gebi ahaanba kala furfuray ciidamadii iyo saraakiishii dhinaca Jubbaland ugu diyaarsaneyd inay ka hortagaan abaabulka dowladda federaalka Soomaaliya ee ay maamulka meel gaar ah ugu dhisayso gobolkaasi. Garbahareysana waxaa laga diyaariyey xaruntii ay degi lahaayeen xubnaha wufuudda ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Villa Garbaharey si weyn ayaana baraha bulshada loogu soo bandhigay, dhowaan ayaase la ambaqaadi doonaa dhismaha maamulka ku meel gaarka ah ee Jubbaland, iyadoo oo guulahan gobolka Gedo ay ka gaartay dowladda federaalka Soomaaliya mahad ballaaran ay ugu hayso Cabdirashiid Janan, taliyaha nabad sugidda Jubbaland loo magacaabay. wixii warar ah ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan. Nala sii jooga saaxiibayaal, nabadgelyo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qaaday tallaabo rajabeel iyo quus gelinaysa xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka dusha ayuu aadiyay xilli weli aan la isla meel dhigin doorasho heshiis lagu yahay, wuxuuse si toos ah u aaday oo uu tuutaha u xirtay furmaha hore ee dagaalka. Xogo iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan arrintan ayaan doonayaa inaan muuqaalkan idinkula wadaago. Soo dhawaada saaxiibayaal, haddii aad nagu cusubtiina nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada inagu xiran aragtidaadana qaybta faallada ama commentiga kaga soo dhiiba. Hagaagkan ku bilaabo. ila xilkas ah oo ka tirsan madaxtooyada qaranka ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu tuutaha u xirtay isla markaana uu u dhaqaaqay jihada dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab isagoo u tagaya furmaha hore ee dagaalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saldhig ama fadhi waxa uu ka dhiganayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, iyadoo oo saraakiisha hay'adaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliyana ay ku weelin doonaan qorshahan oo la xiriira dib u ambaqaadida howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo in dhawaalaba hakad uu ku jiray. Tani waxa ay muujinaysaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dusha aadiyay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka maadaama wax ka badan 2 bilood oo xiriir ah
shirar isdaba joog ah ay lahaayeen xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo oo gunaanadkii kulankii ugu dambeeyey aan wax natiijo ah aysan ka soo bixin. waxaase jirtay rajo ay qabeen xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood oo ah in wadahadalladan ay sii socon doonaan. hase ahaatee tani way soo afjari doontaa rajadii xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu si toos ah markan uu u furay galka dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyadoo uu gebi ahaan bilaabay boggii arrimaha doorashooyinka ku qotomay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana isku mari doona furumaha dagaal ee ka furan gobolada hiiraan, shabeellada dhexe, galgaduud. dhammaan goobaha uu tegi doono waxa uu kulamo kala duwan uu kula qaadan doonaa hogaanada saraakiisha howlgalkan qaybta ka ah. waxayse ku soo aadaysaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud dib u laabashada furmaha dagaalka xilli dhowaan taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawaye Yuusuf Raage isbedel uu ku sameeyay dhammaan talisyada guutooyinka iyo ururada ciidanka militariga ah ee Soomaaliya. waxaase loo fasirtay in tani ay ahayd dhiig cusub oo uu taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hogaanada galka arrimaha dagaalka ka dhanka kooxda shabaab loo dhiibay in ay yihiin dhiig cusub oo dardargelin kara. marka la eego madaxweyne xasan sheekh maxamuud dib u laabashadiisa furmaha dagaalka waxa ay rajo badan gelinaysaa ciidamada dadka deegaanka ah oo muddo dheer kooxda al-shabaab is horfadhiyeen. shabaabse deegaano dhowra ayay dib ugu soo laabteen markii laga gaabiyey howlgalkii iyaga ku wajahnaa. wixii warar ah ku soo kordha wararkeena dambe ayaa ku daawan doontaa. nala sii jooga saaxiibayaal, nabadgelyo.